iyadoo guud ahaanba geeska Afrika ay soo martay xaalad adag oo dhinaca abaarta ah iyo waliba jilaal daba dheeraaday roob yaraan ayaa xukuumadda dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan hay'adaha iyo wasaaradaha ku shuqulka leh ka hortagida aafooyinka bani'aadanimo ama si dabiiciga waxay u direen gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland kooxo u kurgala xaaladda nololeed ee dadka iyo waliba inta ay gaarsiisan tahay abaarta Soomaaliland xilligan ku gadaaman gobolada ay kooxahaasi sida rasmiga ay u gaareen ayaa waxaa ka mid ah gobolkan Togdheer oo ay dhowrkii maalmood ugu dambeeyay ay kormeer xaqiiqo raadis ay ugu gaala bixinayeen kooxahaasi waxaana ay kooxdani ay sheegayaan kadib deegaamo badan ay soo mareen in loo baahan yahay gurmad dhinacyo badan taabanaya si looga hortago masiibooyin badan oo ka iman kara abaaraha iyo deegaamada reer guuraaga kooxdan xaqiiqo raadiska ah ee ku sugan gobolkan Togdheer ayaa sidoo kale waxay xuseen inay jirto caafimaad darro soo wajahday dadka iyo xoolahaba taasi oo ay sababtay yiraahdeen nadaafad darro dhinaca biyaha ah sidoo kale dhibaatooyinka badan ee kooxdan xaqiiqo raadiska ah ay sheegayaan ayaa waxaa ka mid ah xanuuno badan oo soo wajahay xoolaha isla markaana ku dhacay qaar ka mid ah geela sida furuqa iyo caalka waxaa kale oo ay tilmaameen kooxdan in shubanku ka mid qayb yahay dhibaatooyinka ay deegaamadaasi ku soo arkeen isla markaana ay u baahan yihiin deegaamadaasi gurmad dhinacyo badan taabanaya deegaamada waqooyi ee gobolkan Togdheer ayaa si ballaaran looga dayrinaya xaaladooda oo xilligan ay ku qayladaan ku wajahan biyo yarood iyo xanuunada xoolaha ku dhaca ay ka imanayaan roobabka guga oo aan si fiican uga diin iyo jilaalkii oo daba dheeraaday ayaa waxa ay sababeen abaarihii ballaadhnaa ee aynu ka soo gudubnay kal hore waxaana ay kuwaas ka tageen dhibaatooyin badan oo dhinaca nolosha ah isla markaana saameyn ku yeeshay nolosha mustaqbalka dhow ee reer guuraaga oo qaar ka mid ah reer guuraaga ay intay xoolihii ka baxeen ay si rasmi ah ugu soo xaroodeen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland qaramada midoobay iyo beesha caalamka ayaa iyaguna roolkii ay ku lahaayeen ka qayb qaadashada abaaraha dalka Soomaaliland aan si mugla uga qayb qaadan muddooyinkii ugu dambeeyay walow aan xilligan la garan karin kaalinta ay ka qaadan karaan ka hortagida masiibooyin dhinaca abaaraha ah kooxahan u kurgalaya xaaladda abaaraha ee ka socday xukuumadda Soomaaliland ayaa soo maray deegaamo badan oo ka mid ah gobolkan Togdheer isla markaana ay ka mid yihiin Nasiye, Waraabe iyo Sanyare, Kalbarre, Boorley, Dindinta iyo waliba deegaamo kale oo fara badan waxaana xilligan ay ku sugan yihiin kooxdaasi xaqiiqo raadiska ah gobolka Dartmouth amaba seeg Oodweyne halkaas oo ay ka sii qaanbaqaadi doonaan howlgalkoodii ku wajahna u kurgalida abaaraha gobolka Togdheer si kastoo haataba xaaladda roob yaraanta ee ka taagan gobolka Togdheer iyo guud ahaanba gobolada bariga Soomaaliland ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli gobolada galbeedka Soomaaliland ay muddooyinkii ugu dambeeyay amaba se toddobaadkii ugu dambeeyay ay ka daayeen roobab xoogani Cabdi Sattar Sabri Burco